halkan waxaan ku joognaa 7 xildhibaan oo doonaya inay wax ka idhaahdaan xaaladii maanta ka dhacday magaalada Boorama ee mudaharaadkii runtii aad iyo aad baan uga xunnahay magaaladii la noo doortay aan ku dhalanay in shaqaaqa noocan ay ka dhacdo aad iyo aad baan uga xunnahay cid kastoo dhibaato ka soo gaadhana waxaan leenahay waan ka tacsiyadaynaynaa runtii haddaan xildhibaan nahay magaalada in wax la soo gaadhsiiyo ma ogolin dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay isdejiyaan cidda magaaladu ay ka dumaysay waynaka cidda wax haday dhaawacmay ka dhaawacmayaan waynaka cidda mar walba rabshadu ay soo gaadhayso waynaka magaaladan inaka la dadweynaha cidina la leeyma jirto istejiya dadweynaha istejiyaan leenahay ciidanka booliiska waxaan leenahay hal loo tiro dadweynaha awalba tuli jirteen dadweynuhu waa shicibkeennii hadday gadoodeen inaan u turno waa inagu waajib ciidankan waxaan ka codsanayn dadweynaha u turaan runtii waxaan dareemayaa inay roolkii maamulka degmadu uu aad u liito maamulka degmaduna waxaan leeyahay kaalintiinnii dejinta dadka qayb qaata ummadda soo dhex gala dadku wayna doorteen amniga inigaa ka mas-uula sida aan maanta u dhex joogno ummadda u soo dhex gala oo maanta ay ka dhacday degmada Boorama shaqaaqo amni darraa oo runtii dadka Boorama iyo deegaanka ku nooli ay maanta gadoodeen oo arintii in waxa weeyaan dilkii ka dhacay Lowyacado sabab u yahay waxaan leenahay horta waa midda koowaade arintii aad ka hadlayseen ee aad maanta arinta uga kacayseen dhamaad bay taagan tahay arintii wiilkii ama dhibta geystay dilkii xukun baa lagu riday maxkamadii labaad iyo tii koowaad ba xukun bay ku rideen marka waxaan leenahay xukuumaddu haw dhaqsato oo bulshada ballantii hore looga qaaday hore loo fuliyo ee culimada iyo waxgaradka gobolka Awdal haday degmo tahay iyo haday gobol tahay bay hore ugu sheegeen inay hawshii dhaqan gasho baan horta soo jeedinaynaa ka golaha deegaan ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba marka labaad degmada Boorama iyo dadkeeda waxaan leenahay walaalayaal waxaynu wax ku helaynaa oo aynu wanaageena iyo horumarkeena ku jira inay nabadgelyada ilaashano maanta intayna soo gaadhay wax walba way naga culus tahay in dambe oo dhacdaana culayska inay sii siyaadiso mooyaan cid faa'iido ka helaysa ma jirto dhammaan waxaan leenahay dadka ku nool degmada Boorama iyo cidda gacmaha kula jirta aan ognahay horeyna u sheegnay inay shaqaaqada iyo dhibaatada ay dadka ka wadaan ay faraha kala baxaan ciidamada ammaanka iyo dadka iyo xukuumaddan waxaan u soo jeedinaynaa inay shaqadooda si wanaagsan oo dawladnimo u qabsadaan inay shaqadooda sida ummadda inay ugu adeegayeen ay ugu dhaarteen inay ugu qabsadaan ciidamada ammaankana waxaan leenahay tulaala ayaa la idinka baahan yahay waxa la idinka baahan yahay dadkani waa dadkiinii inaad maaraysaan baa la idinka baahan yahay la idinkama baahna inaad xabad ugu jawaabtaan aad laysaan iyo kalaftooda waxaan leenahay intaasaan leenahay degmadu waa degmadayadii waa tiina loo soo doortay lixjecladeeda cid maanta annaga nooga lixjeclo badan oo dhibtaana soo gaadhay culays iyo dib u dhac ay nagu saayidiso mooyaane waxay noo keenaysaa ma jirto baaq umaan ka diraynaa laba dhinac umaan baaq u diray anigu waxaan leeyahay anoo golihii deegaanka ee degmada mas'uuliyaddeeda lahaaya waxaan baaq halkan baaq uga dirayaa shacbi weynaha ku nool degmada Boorama waa degmada Boorama ma aha magaalada Boorama waliba degmada ma aha magaalada Boorama waxaan leeyahay magaaladani dhagaxaynu la dhacayno aynu taayirada ku gubayno waa magaaladeeni waa guryaheeni waa awlaadeeni yaanan dhaqanka noocaas mar dambe loo noqon waxa weey wixii halka ka dhacay waynu ogeyn ninkii waa la shalay waa la xukumay ma hawshiisina waa dhamaad baa laynagu yiri waan sugaynaa maanta iyo bari iyo saan dambe mid ka dhacda baan sugaynaa hawshiina waxa aynu ka degdegnaana ma yaalo dadka war xumato shirka dadka ku dhex tuurayna waxa leeyahay war ilaahay ka baqo dadka maatada ee wax ma gartaa kicinin leh fara badan baa ku dhex jiro waan dareemaynaa oo say wax u socdaan waxaan leeyahay ciidankana dadka u turaan ya dadku waxa weey mas'uuliyiin baanu nahay dadku waxay doonaan baan waxa aan imika gaarigayga la jeeday la jijibiyay moogtay dhagax baan ugu dhacay wax kasta ugu dhacay haddana waan dul qaadanaa hadda waa mas'uuliyadda ku faraysa waxaan leeyahay marka dadka ciidankana u dhibriya dadka si deegaan loola hadlo oo mas'uuliyad ku jirto oo turaale ku jiro ayaan leenahay xukuumaddana waxaan leenahay dee arrintani intaynan halka maanta ay joogtay nagu sii dhaafin
ninkiiba qiraal buu yahay maxkamaddii baa shalay sheegtay in degdeg loo raaciyo maxaa loo haystaaba oo waxaaba keenaya oo amni darro inagu keenayaba ninkii isagaa qiraala anaa geystay buu leeyahay markhaati uma baahna mara kale uma baahna sagu dhaqsaha badan leh hawshaa lagu fuliyaan leenahay ciddii wixii intaa ka dambeeya hawlaha soo faragelisa ama amni darro magaalada ka keentana mas-uuliyaddeeda qaadaysa waan ognahay shalay oo ugu dambaysay baan ka garnaqayay waalidiin awlaaddoodii xidhan tahay